أيها الإخوة في الله waxaynu ugu soo fooleh bishii barakaysaneed ee Ramadaan fursad qaali ah iyo muusim iyo waqti aad qaali ah oo qiimo badan inoogu fadhiya ayaa inagu soo aadan inagu soo foodleh sidaad uga faa'iideysan lahayd oo fursadda uga faa'iideysan lahaydna waxay u baahan tahay diyaar garow su'aashu waxay tahay bishu intayna soo galin maxaa nala gudboon oo noogu kaalmayn kara inaan bisha ka faa'iideysano iyo khayraadka Ilaahay dhex dhigay tabaaraka wa ta'ala jawaabteedu waxa weeye arrimo dhowr ah intayna bishu soo galin inaynu ku dadaalo bisha ka hor koobaadi waxa weeye in aan ducaysano Ilaahay weydiisano inuu bisha nabad iyo caafimaad inagu gaarsiiyo hay'alay salafku ridwaanullaahi calayhim sida min munkadir laga warinayo Ramadaan ka hor waxay Ilaahay weydiisan jireen allow Ramadaan na gaarsii طبعا haddaad Ramadaan Ilaahay ku gaarsiiyana gudihiisa waxaad weydiisanaysaa Ilaahay inuu ku waafajiyo khayrka dhex yaala Ramadaan hadduu dhamaadana alla waxay weydiisan jireen wixii khayray sameeyeen inuu Ilaahay ka aqbalo marka Ilaahu Ramadaan nabad iyo caafimaad nagu gaarsii kadibna nawaafaji khayrka dhex yaala inta ugu badan inaan ka qaadano qodobka labaad waxa weeye ee haboon inaad Ilaahay ku shukrino tabaaraka wa ta'ala oo nu mahad celino لأن إناد مركل رمضان سو قادو والنعمة عصب أو إلهي تبارك وتعالى كوغو النعمي يا أبال أو كوغ قلي واحد مركز طول نعمه شنا واجب كوا إناد كشكر دو سي الله كوغو السياديو كوغو نحفظيو الله سيدو قرآن كإنه شاقل إن شكرتم لأزيدنكم نعم كادات كشكر دان وإذين كردينيا marka inaan shukrido alxamdulillah tiraha oo imisa badan imisa walaalaheen oo ramadaankii hore inala soomay ayaan mar kale fursad u helin kan inay nala soomaano cibaadaystaan hadii marka Ilaahay adiga ku soo gaarsiiyay inaad Ilaahay u mahad celiso qalbigana uga mahad celiso carabkana uga mahad celiso xubnahaaguna ay ku mashquulaan sidii fursadda aad uga faa'iideysan lahayd marka shukriga iyo xamdiga waxa kamida bishu markay dhalato iyo bilaha kaleba nabigeena dhaqankiisu wuxuu ahaa sallallahu alayhi wasallam bisha markuu arko inuu duceeyo ummadana saasuu baray sallallahu alayhi wasallam اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى إله بش نوغو دلي بركو هي إيمان أما نبتقلي إيمان يا إسلام نمو يا إن النوافجسو وحي أدرالي كتاها بيشا دحيا له خير كدحيا له أدرالي كتاها إن النوافجس أدرالي كل نقنيس وحكم إذا وحيالها لقى برمان كبيشا كهر إن نكود ذالو بيشي أو إنوصو صحتا إلهنا أوي دي سنة إنو نقارسيو inay ku dhalatood gaadhay inaad ku faraxdo oo aad bishaaraysato waxa yeelay nabigeenu salawaatu rabbi wa salaamu alayhi saxaabadiisa waa u bishaareyn jiray qad jaakum ramadaan ba idin yimid waa bil baraka iyo khayr badan oo wanaag badan dhexdeeda yaalo ilaahay soonkeeda ayuu idinku waajibiyay iridaha jannada ayaa la furaa إليدها نار تنوال حدا شياطين تنوال كتينة ديا هبين وحا كتشيرا كخير بدن كم بلود عدي خير كذا لقى قديي بال قديي نبي مركوا بشارين شري صلى الله عليه وسلم وحي بشارة أطهاي دتك خير كتشعل وناك كتشعل الدنيا أهل الإيمان كا لكن دتك إيمانك ضعيف كيهي الشهوات كعاديستي عليس بين رمضان كطهي كوية طبن بلاد مركي عنان وحبان والشهوات كقوتان
halkaa bil inay soo gashaay culays bay ka dareemayaan waxayna tilmaamaysaa in iimaankaagu aada u hooseeyo tacbaan yahay waxaa ka mid a arrimaha loo baahan yahay bisha ka hor inaynu ku dadaallo in aan ilaahay u toobad keenno wixii dembi een gallayna aan ka qoomamoonno kuwa aan lugta kula jirneen hadda samaynaynana aan joojinno allahna tabaaraka wa tacaala dembi dhaaf weydiisannoon xumaanta ka noqonno iyadoo liibaantaada ay ku xidhan tahay sida ilaahay qur-aanka ku sheegay watuubuu ila allahi jamiican ayuha almu'minuun xilli walba loo baahay inaad toobad keento dembiyadoo dhanna laga soo laabto ayaa haddana bisha ramadaan mudnaan khaasay sii leedahay waa bishii towbadda haddii aada qalbigaaga aada towbad dhab alla timaado waxaa dhacaya in qalbigaagu daxasha iyo wasakhda iyo qashinka fuulay ee dembigu saaray ee sababta u ahaa qalbigaagu inuu ka bogsoodo qalbigu markuu dunuubtii iyo wasakhdii ay saartay uu ka bogsoodo saafi noqdana wuxuu xoog iyo awood u helaa daacada ilaahay tabaaraka wa tacaala lianna waxa daacada iyo khayrka inaga hortaagan ama inugu diraya ama aan ugu adkaysan la'nahay waa quluubteennoo wasakhowday waaye waxa soonka adu kari laadahay salaadaha jamaacada u kari laadahay sadaqada u baxsan laadahay diinta faafinteedii khayrka uga qayb qaadan laadahay wax kala ma ahe qalbigaagii baa si wax ka yihiin qalbiga marka sifee si soonku kuugu fududaado salaatuleylku kuugu fududaado qur-aanka akhriskiisa u macaansato sadaqada aada u bixiso adigoon dhibsaninoo culays dareemin ictikaafku kuugu fududaado si cibaadaadku kuugu fududaadaan qalbigaaga sifee oo towbadda ku sifee waxaa ka mid ah arrimaha muhimka ah ee bisha ka hor loo baahan yahay inaynu u diyaargarowgeeda aynu la nimaadno in aada la timaado go-aan rasmi ah ilaahayna aada run u sheegto qalbigaaga wuxuu ilaahay ka arkuu kugula dhaqmaa sida nabigeenna ka sugan sala allahu calayhi waaalihi wasalam allah ma fiiriyo sawiradiinna jidharhkiinna iyo jidhkiinnana ma fiiriyo laakiin wuxuu fiiriyaa qalbigiinna iyo waxa ku jira allah qalbigaaga hadduu ka arko daacadnimo iyo in aada go-aan rasmiya go-aan ay kaa tahay dhab ah inaad ilaahay raali geliso bisha iyo muusimka iyo xilli kasta ilaahay wuxuu kuugu kaalmaynayaa inaad gaadho wixii aada rabtay ujeeddadaada inaad gaadho ilaahay kuugu kaalmay laakiin run u sheeg faidaa cazama alamru falow sadaquu allaha lakaana khayran lahum shu-uunta markaad gelayso culculus ilaahay inaad run u sheegto waayo ninkii saxaabiga ahaa nabigeenna sala allahu calayhi waaalihi wasalam ardadiisa ka mid ahaa goortii dagaalka la gelayay dagaalkii inta la galay haniime iyo xoolo la soo helay xoolihii qeybtii kaga soo hagaagtay qaada la yidhi oo diiday oo yidhi nebi maxamedow arrinkii aan kugula ballamay oon beecada kugula galay kan ma ahayn oo maxaad beecada iyo ballanta igula gashay in halkaasi lay wareemo oo halkaa uu igaga dhaco cadowga hubkiisa iyo leebkiisu kadibna ilaahay dartii aan shahaado u qaato taasay ballanteennu ahayd ee xoolo ma ahayn nebigu muxuu ku yidhi sal alla alayh wasalam in tasduq illaaha yasduqka haddaad ilaahay run u sheegto qalbigaaga arrintaasi daacad ka tahay adigana ilaahay baa kuu rumaynaya oo kuu run sheegaya marka waa meesha lagu kala tegaya waay qalbigaaga marka go-aan dhab oo rabbi aada isku ogtihiin la imow in aada sida ugu badan uga faa'iidaysato bishaa barakaysan iyo khayraadka dhex yaal waxaa ka mid a arrimaha muhimka ah ee inoogu kaalmaynayaa bisha iyo diyaargarowgeeda inay si aan uga faa'iidaysanno sida ugu fiican waxaa ka mid a inaad qorshayso oo aada nadaamiso oo takhtiidiso qaabkaad uga faa'iidaysan lahayd
لأن ابن آدم كوحياله ودونه إنه قاعده أما الدنيا هالنقطة أما مقاصد آخرها النقطة وصائش أقول كلمة وحكم ذا إنه ليه قرشه أكو قاري لها وشائية ذا وإلا هدادا قرشد جنين أرنكا وقصة الرسول يا أماني وأسكتش على هاي وأنا على هاي وأنا ربيتان كليا وحكم السعودان التخطيط المسبق نظامي قرشة جدول دجي قاب كاد وفا إذا سن لهيد بشا بركيس نبي قال هدي يسيبها صلوات ربي والسلام عليه إنه أرمها مركا وقال كهر لا قرشيو وحي ربي سود دجينا إن بدن يميل بدن ولا قادنا يا بني آدم كو إنه قرش ليه أو سنفوضى إسقى سعونين سيداس دراديد نظامي مثال هذا سوق هذا waxaad rabtaa inaad quraanka kariimka bisha barakaysan 10 goor dhamayso oo cibaadadka ugu waaweyn kamid ah hadii aad sida intaad iska jeclaato ramadaan ku soo galo waqtigiisu ku maro waxa dhici karaysa adoon hal shay ka fulinin ama wax yar kaaga fuleen bisha inay kugu dhamaato laakiin hadaad qorshe iyo jadwal dajiso ujeedadaad lahayd si fudud baad ku gaari kartaa waxaad rabtaa imise bari baa ku soo hagaagaysa inaad halkii juzba dhamayso xilliyada aad kala akhrinayso waa xilliyadee xilli walba inteed rabtaa inaad akhrido markaad wixii jadwalayso ayaa waxaad gaari kartaa ujeedadii aad rabtay iyo 10kii juz iyo 15kii iyo waqtiga aad rabtay gaari kartaa kadalika waxa la mid ah sadaqada bisha ramadaan inaad wax sadaqaysato rabtaa qorshana umaadan dejinin xoolahaagii wax kamida maadan soo saarin oo meel ugu maadan talagelin ganacsigii bay ku kala jiraan xageed ka keeni waay wixii aad sadaqaysan lahayd laana ma baadan diyaarinin sidaas daraadeed qorshe iyo nidaam inaad ku gasho oo markaasi aad ku gaadho maqsadkii iyo ujeedadii fiicneed lahayd qorshaha waxa kamida in aad soo yarayso mashaaqisha adduunka 11 bilood baan garaacaynay oon ganacsi ku jirnay oon xamaalanaynay oon ordaynay oo adduunyo garaacaynay 11 bilood waxaad keeni weyday ramadaan keeni maysid saas daraadeed u faaruq cibaadada ilaahay hadaadan karayninna ugu yaraan soo yaree waqtigii mashaaqisha adduunyada soo yaree oo waa hal bilo waa waqti koobana u soo bado dhanka cibaadada iyo taacada salawaadkii qiyaamul laylkii quraanka akhriskiisii sadaqaadkii i'tikaafkii umradii cibaadaadkii u soo bado oo qorshe samee inaad mashaaqisha iyo hawlaha intooda badan ramadaanka dunyawiga inaad iska wareejiso si aad halkan uga qaniimaysato uga faa'iideysato bisha barakaysan waxa kamida arrimaha loo baahan yahay ramadaan ka hor in aynu diyaarsano inuu u diyaar garowno si aan ugu diyaar garowno bisha iyo ka faa'iideysigeeda in aynu baranno oo aqoon iyo fiqh u yeelano bisha ramadaan iyo ka faa'iideysigeeda ahkaamta ku saabsan gaar ahaan soonka iyo ahkaamta ku saabsan laana cilmigu barashadiisu labu u kala baxaa midna waa cid kasto waajib ku yahay مدينة دتك قار كود بالغ الربا ومدة قار كمدة وحا كمدة علمك عد كستواجب كوا علمك قلا واجباتك يا فرائض الدين تقلا ساد أتو كان لهيد وصلاة دادو أصحمي لهيد علمك كصاب سنة عد كستواجب كويا عقيدته إنه يكوص حنطوط شركي كبد باد سنته إنه يكوص حنطوط بدعة كبد باد علمك كصاب سنة واجب واحد صونك علمك كوساب سني واجب وعيد كستا لغا ربا مؤمن كنا كذلك markay aad gaadho inaad zakab bixiso inaad barato cilmiga ku saabsan markaad gaadho inaad ganacsi gasho beec iyo shira gasho cilmiga ku saabsan beeca iyo shiraha waa inaad taqaano si aad uga badbaado inaad xaraan cunto ama caruurtaadii eelkaaga cunsiso ama aad kasbato وهكذا علمك واجبك وقتيسا إنوسن كدافين واحد سياد إلهي أقو عابدو أديقو علمي علمي يقرشاد أقو عابدو على بصيرة كدبنا عبادة ذي عمل كاق الله أقبله
لأن عمل أن علمي سنين إلهي أقبل مايو عمل أن وافق صنين هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم الله أقبل مايو إن لقى أقبل الدلال كاغا وحي كحرنتهي إنه علمي سنيهي وإلا وحاكو قبصنا يساه ارجع فصلي فإنك لم تصلي وحبا ماذا تكنيني كع صلاة كن قصوتك نبي قايل صلوات ربي وسلامه عليه مركع علمي كنت دالا أخري ضالعو هداد سمين كرتو دقيسو ويدي كنت دال أقون ويالو صون كاغا محاب برية محو باهي هاي محو كوغنتما سيبش اللوغا فايديستا أعماشو سيبي أكل خير بدن تهاي سي أين فرصدو كاغلو منو عدة أقو فرصد إيا جانس في عان أظن نقطو كفايديست أرمها دمان تودي وحوي والرمضان كهر بشو هدي دلتو أو أي دلتو إلهي كو غارسيو نبينا صلى الله عليه وسلم هدي سوحو أها بيل دلتي مركو أركو بشا أي أو أركو ودعي سنجري صلوات ربي وسلامه عليه وحودي جري إلهو بشا نوغو دلي إيمان يا أمان يا إسلام نمو iyo inaad nawaafajiyo wixii khayr ku jira waa markay dhalatood aragto ilaahay ku gaarsiyo tabaaraka wa taala san soo sheegay arimahaas marka waxa walaalayaal waa diyaar garowga bisha ramadaan diyaar garowga bisha ramadaan sida aad ugu diyaar garowdaan mawaasimta ganacsiga xilliyada ganacsigu dhaqdhaqaaqo oo ganacsigu uu soconayo oo bilaha suuq dhaqdhaqaaqa leeyahay markay soo socdaan oo soo dhow yihiin waa loo diyaar garoobaa alaabtii baa meel walba laga keenaa adduunka laga soo ururiyaa nin walba wuxuu isku dayaa labada bilood saddexda bilood ee suuqu furan yahay inuu ribaxa iyo faa'iidada ugu badan uu ka qaato alaabtiisana socodsiiyo waa tijaara adduunyo oo u diyaar garoobayso tanina waa tijaaro aakharo oo u diyaar garow u baahan badeecada China ka keenayso tan aakharana waxay u baahan tahay badeecadeedii inaad diyaariso labada badeeco un baa kala duwan laakiin saad adduunyadaada mudnaanta u siinayso si ka fiican aakharadaada mudnaan u sii ilaahay tabaaraka wa taala bisha khayr iyo nabadgeliye iyo amaan allah inuu gaarsiiyo haddii ilaahay ina gaarsiiyana hayna waafajiyo acmaasha ugu badan ee ugu mudan in ilaahay ina waafajiyo haddii acmaasha aan sameynana ilaahay haynaga aqbalo tabaaraka wa taala hayna ugu dambi dhaafo sallu wa sallimu ala khatamil anbiya'i wal mursalin allahumma salli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulika muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين وارض اللهم عن الصحابة والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ردنا إليك ردا جميلا ووفقنا لما تحب وترضى اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم بلغنا رمضان ووفقنا فيه لما تحب وترضى وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك